waa maskaxshiil iyo hannaan ku dhisan fiyoobida fikradda aadanaha. Cabdullaahi Maxamed Cali Nageeye waa 25 jir makaanig ah kuna nool Muqdisho. waxa uu hindisay hal abuur soo jiitay indhaha dad badan oo Soomaali ah, waana mid ka mid ah gaadiidka loo adeegsado goobaha dagaalka. inkastoo gaarigan uusan u dhammaystirnayn hubka lagu rakibo taangiyada iyo awoodsiinta inuu noqdo mid loogu shirtago furimaha hore ee dagaalka, sababtuna waa macmal gacan ku samays ah. waxa uu leeyahay 4 lugood oo ku soconayo, waxaa ku dahaaran silis ka difaacaya taayiradu in ay banjaraan. waxaa u socon karaa hore iyo gadaal, waxaana geli kara hal qof, waana wadaha gaarigaas. Cabdullaahi Nageeye oo ah sameeyaha gaarigan ayaan kala sheekaystay waxa ku dhaliyay soo saarista taangigan iyo cidda uu kaga dayday muddada ay ku qaadatay hindisaha ama samaynta taangigan, inkastoo uusan helin hiil ku aadan ku garabsiinta agabka uu baahnaa, laakiin tala saarashadiisa alle iyo dadaal dheeraad ah oo uu bixiyey. ugu dambayn waxa uu soo saaray taangi Muqdisho lagu sameeyey oo saanqaadaya. wallaahi waxaan ka shaqaynahay bahalkan adiga muddo dhowr bilooda. waxyaabo sabab badan ay ugu dhaliyay. sababahaas waxaa ka mid ah ka koowaad waa dalka Ruushka. run ahaantii dalka Ruushku waa dal aad iyo aad maalinkii uu soo bandhiganayay taangiyada wuxuu soo bandhigay taangi 70,000 oo xabo taangiya. xaqiiqan 70,000 oo taangiya markaan arkay waddankayguna uusan lahayn hal xabo xataa la riixayo, waxaan go'aansaday inaan bulshada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba inaan u badhaamiyo. haddaan maanta isku duubnaano inaan waxyaabahaas oo kale aan waddanka horumar intaas leeyo kale inaan gaarsiin karno, inaan yacni 70,000 meesha ay ka soo bandhigteen anaga miliyan xataa hal xabo la riixayo. waxyaabahaas gaabiska nagu keenayna waxay yihiin run ahaantii annagoo dantee guud ka shaqaynayn oo danaha kaliya gaar ahaaneed kaliya nin kastaaba uu ka fakarayo. hindisahan hadda oo kaliya kuma aysan dhalan, waxa uu isku arkay isagoo aad u daayar sida KNN uu sheegay. waxa uuna tilmaamay inuu dhiirigelin badan ka heli jiray waalidiintiisa, bilicsiinta iyo arrinta xiisaha iyo soo jiidashada u samaynaysa taangigan ayaa ah ka dulbabashada 3 calan oo kala midab ah, astaanna u ah dalalka Soomaaliya, Jabuuti iyo Turkiga. maxay kaga dhigan tahay Nageeye 3dan calan ee ka dulbabanaya taangiga? waxaantii 3da calan arkaysaan garbahayga saaran. calanka dhexe waa calanka jamhuuriyadda aan u dhashay ee Soomaaliya. calanka kale waa dalka walaalahayna dhammaan bulshada Soomaaliyeed. marnaba aanan jeclayn in shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed inay sinama u kala yacni waxaysnaato, in aanan aysan nagu fiirsan wax yar oo dhibaato ah hadday bulshada Soomaaliyeed soo gaarto. waa dalka kaliya ee u jecel inay Soomaaliya mid noqoto, inay Soomaaliya isku duubnaato, inay Soomaaliya barwaaqo gaarto. calanka kaleete ee saaran gacanteeda bidixdaana waxa weeye waa walaalaheena dalka Turkiga. run ahaantii dalka Turkiga waxa waaye abaal aad u weyn ayuu noo qabtay. hadlo meel kasta ee qof muslima lagu dhibaataynayo asagoo hadalkiisa aan gambasho lahayn. mar aan weydiiyey su'aal ahayd ma iibsan lahayd haddii lagu soo bandhigo lacag ka badan kharashkii kaaga baxay samayntiisa, waxa uu ka biyadiiday arrinkaas. taas beddelkeeduna waxa uu carrabka ku adkeeyey in uusan iibsan doonin, balse uu yahay hibo iyo hadiyad u gaar ah madaxweynaha waddankaynu walaalaha nahay ee Turkiga, Rajab Tayyip Erdogan. maya run ahaantii waxa waaye iibis markaa tiraahdo waxa waaye waa anigoo sharafteeda iibsadoo kale lamid ah ma iibsadeen. taangigan waxaan u hibayn lahay madaxweynaha
dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waa geesiga muslimiinta waxaan tusi lahayn waxaan u hadiyin lahay Erdogan maadaama uu yahay hal abuur aan gacanteeda aniga ku sameeyay awoodna aan u leeyahay maanta inaan soo saaro bahalkaas maadaama uu sambal yahay inaan soo saaro asagoo ka casrisan asagoo xataa korkiisa noqonaya marna helicopter noqonaya marna dhulka ku soconaya marna cirka ku soconaya awood u leh waa aad iyo aad baan ugu hambalyeyn lahay waxa way dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxa weeye inay bahalkan waxaan rabaa inay ogaadaan maanta awoodda ku duugan dhalinyarada awooddaas waxaa laga rabaa qof kasta oo Soomaali oo awood u leh maanta inay hal abuurkiigaas inay hormariso waxaan ka codsanaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhalinyaradooda hal abuur badan ay leeyihiin dhalinyarada meel kasta joogaan waxaan dhihi lahayd hal abuurkooda banaanka soo dhigaan KNN waa TV-ga ama raadiyaha kaliya ee maantay bulshada Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu xiran tahay maadaama uu ka soo daayo barnaamijyo badan uu soo daayo oo bulshada ay ku xiran tahay barnaamijyadaas oo ugu horeeya barnaamijka Kalamaan kuma koobna hal abuurkiisa hindisaha taangigan waxaa ka horeeyay oo uu isla Muqdisho ku hal abuuray baaskiil ku dul socdaalaya badda inkastoo uu mudnaa in la dhiirigeliyo lagana iibsado agabka uu hindisay haddana ma uusan helin cid ka iibsata iska daayay in dalabaad cusub laga dalbado Cabdullaahi Nageeye waxaa mahadho iyo urkutaallo ku noqotay in ganacsato Soomaaliyeed markii uu soo bandhigay baaskiilkan ay noociisa oo kale ay ka dalbadeen dalka Egypt ama Masar waxayna keeneen Muqdisho iyaga oo heli kara baaskiil dalka hooyo ee Soomaaliya lagu farsameeyay una dhigma midka ay soo iibsadeen waa hindise soo jiitay indhaha dad badan oo Soomaali ah iyo dadweynaha kale ee dunida waana hal abuur dhiirigelin u noqon kara maskaxda dhalin badan oo maankooda ka guuxaya helista hindisahan oo kale oo ay helistiisu adag tahay marka la joogo dagaalo sukeeye iyo burbur ka soo kabanaya sida Soomaaliya Cabdullaahi Xuseen Canshuur KNN Muqdisho